barnaamijkan waxaan maanta soo nimid in la soo bandhigo dhawaana la hirgelin doono casriyeynta furdooyinka customiska sidaad ku wada war haysaan wasaaradda maaliyadda in muddo isbeddelada lagu waday iyo sidee ula jaanqaadi lahayd kastamka adduunka tanina waa qayb kamid ah waxyaabihii laga soo shaqeeyay in la soo bandhigo iyo hirgelintoodii waxaan rajaynaynaa insha Allah in dadka wasaaradda maaliyadda teamka anagana shaqadu noogu fududaato ganacsataduna iyaguna shaqada ugu fududaato ka ganacsi ahaan waxaan hore anagu u soo marnay in barnaamij la dhaho bar xog ururinta ama TIP oo Trade Information Portal waan naqaanaa oo wax aad iyo aad faa'iido u leh ganacsatada oo wax ganacsiga muhiim u ah oo wax ganacsiga lagama maarmaan u ah sida hadda ninka presidentska jeedinaya uu sheegay wax kasto isbedel u yimaado dhaqanka bini aadamka waxa waaye inuu diido ka shakiyo iyagoo si fiican macnaha isugu fahmin waxyaabaha wadda carabka ku dhufanaya qaybihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahayd shaqo abuur shaqo abuurkaas waxaa ka daran oo faa'iidadiisa ugu weyn markaad fiirisid casriyeynta laftirkeeda ganacsiga gaarka loo leeyahay dadka in la wacyi geliyo in systemka cusub wuxuu wato faa'iidooyin iyo khasaare intaba maaragta laga niqaasho in lagu tababaro waxa soo dhama ka horeeyay marka waxaan isleeyahay wax ka soo yimaada oo dunidan cusub oo casriga ah oo maalin kasta sii horumarayda la yimaada waxaan ku qasbanahay inaan wax ka baranno inaan ku shaqeyno shaqo ka horna in maaragtay dadka markaas barnaamijkan wada inay ka dhaadhiciyaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta markaas ku shaqada leh oo loogu talagalay inay maaragtay shaqadaas ay ku shaqeystaan runtii wasaaradda maaliyadda waxay aad ugu dadaashay inay bedesho systemka customka uu u shaqeeyo muddo dheer ayay ku taamaysay haddana waxaa la joogaa heer dhaxaadkeedii uu maaragtay uu maradhal lahaa waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaanteen inuu noo miro dhali doono bixisay 4 casho ilaa iyo 48 saacadood the quickest kuwa ugu fudud 48 saacadood ku bixi jireen juhdiyan gelinay in aan ku soo afmeerno maximum maalin ama maalin ibar kii 48 saac ahaana 12 saacadood ama 6 saacadood aan ka dhigay haddana juhdiga markii systemka la igleelo waxyaabaha iman karaya waxay tahay koo canshuurtaadii oo aad ogtahay intaadan dekada iman nin dhaxe ama qof dhaxo wax ku sheegay oo san jirin oo wixii wax cad u bayaan ay yihiin marka meeshii timaadana qatarta kala soocideedii meeshii systemku uu ku diray aadaysa hadda cagaarkii aadana waxa laga yaabaa shaqadaadii dhan inay ku dhamaato wax ka yar saacad cabsi kale ama concern haduu jiro waxaan rabnaa inaan ganacsatada u cadeeyno wax canshuur ah oo hal shilin ah ama shilin ah oo kordhay ma jiro fursadda aqliga rabtaa laftigeeda adiga inay diyaar ku tahay laga yaabaa fursadda laakiin aqligii la imow marka waxaan isleeyahay systemkan waxyaabo badan oo shaqo abuurisa ayuu dhalinyaradu u soo kordhin doonaa fududeynta ganacsiga waa waxyaabaha soo jiita foreign direct investment ama maalgashiga shisheeyaha qofka shisheeyaha markuu rabo dal inuu lacag gashto waxyaabaha uu fiiriyo ugu waaweyn ka mid tahay in qofkii ganacsigiisii uu u helayo wax fududeyn ah oo ah inuu alaabtii uu maanta diray beritoole markay dekada tagto shati fara badan aan lagu xireenin procedure fara badan aan lagu xireenin ayadoo danabaysan ee wixii inta hal mar dhinac isla marto alaabtiisii uu hor kala baxo